madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa soo gaaray magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug waxaana lagu tilmaamay safarkan inuu madaxweyne Farmaajo qaatay go'aan taariikhi ah. waxay u eg tahay in go'aan taariikhi ah oo masiiri ah oo madaxweynuhu gaaray in dalka la badbaadiyo kadib markii gobashiisii la aqbali waayay gobashii maamuladana ay ku soo dhamaatay in xukuumadda iyo maamulada ay wada hadlaan marka waa go'aan taariikhi ah oo masiiri ah oo gaaray waa geesinimo loo baahnaa waana arrin ay tahay in la soo dhaweeyo ilaahay idinkiina heshiis siyaasadeed laga gaaro. madaxweynaha oo gudoomin doona shirka wadatashiga ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulada waxaa garoonka diyaaradaha ee Ugaasnur ee magaalada Dhuusamareeb ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre, madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye, madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed, madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare, gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug iyo waliba mas'uuliyiin kale oo ka tirsan golayaasha heer federaal iyo waliba heer dowlad goboleed. shirkan loo asteeyay inuu ka qabsoomo magaalada Dhuusamareeb ayaa ku saabsan hanaanka geedi socodka siyaasadeed iyo amni ee dalka iyadoo madaxdu ay ka arrinsanayaan qodobada muhiimka u ah dowlad dhiska dalka oo ay ugu horeyso qabsoomidda doorasho waafaqsan dastuurka, sharciga doorashooyinka iyo waliba xeerarka kale ee dalka u degsan. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya inta uu ku sugan yahay magaalada Dhuusamareeb waxa uu kulamo gaar la qaadan doonaa madaxda heer dowlad goboleed, waxgaradka deegaanka iyo waliba bulshada rayidka. magaalada Dhuusamareeb waxay horey u martigelisay oo ka qabsoomay shir wada tashi ah oo ay isugu yimaadeen madaxda maamul goboleedyada. shirkaasi oo ay ka soo saareen warmurtiyeed ay ku tala bixiyeen in dalka laga qabto doorasho dadban maadaama sida ay sheegeen ay aaminsan yihiin inaanay suurtagal ahayn in dalka ay ka qabsoonto doorasho hal qof iyo hal cod ah. magaalada Dhuusamareeb waxaa la filayaa inay ka dhacaan kulamo lagu lafagurayo arrimaha taagan ee siyaasadda oo ay halkaasi ku yeelan doonaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo waliba kuwa maamul goboleedyada. marka laga yimaado arrimaha doorashooyinka waxaa la filayaa in kulamada looga hadlo khilaafyo gaar ah oo ka dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada qaarkood sida Puntland iyo Jubbaland waxaana la rajaynayaa inay shirka Dhuusamareeb ka soo baxaan go'aano midho dhal ah. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa door fiican ka qaadatay dhismaha maamulka Galmudug oo midaysan waxaana hadda madaxweynaha cusub ee Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor uu qaaday tallaabooyin taariikhi ah. wuxuu meesha ka saaray khilaafyadii dhinaca siyaasadda ee deegaanka ka jiray waxayna hadda Galmudug u suurta gashay oo ku guuleysatay inay dhigto gogol looga hadlayo xaaladda guud ee dalka.